بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا وركا ساعدة تلفزيون كهيرشبelle aad waqtiyadan oo kala daawataan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqday dugsiga tababarka ciidamada commandoska dalka Turkiga halkaas oo xarun u ah dib u dhiska iyo tayeenta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo tababar ku qaadanaya magaalada Isbaarta ee dalka Turkiga. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xerada tababarka ciidamada Turkiga ee Isbaarta waxa uu kula kulmay saraakiil iyo asgar waqtigan tababar oo uga socdo kuwaas oo dhawaan loo soo gabagabeyn doono waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uga warbixiyay qorshihiisa amniga ee dalka sidoo kalena waxa uu saraakiisha iyo ciidamada tababarka ku qaadanayo xerada tababarka ciidamada dalka Turkiga ee Isbaarta waxa uu ku bogaadiyay doorkooda nafurineed ee dalka iyo badbaadinta ummadda Soomaaliyeed. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ciidamada iyo saraakiisha waxa uu sheegay in dawladdiisu ay ahmiyad gaar ah siinayso tayeenta iyo sare u qaadida amniga guud ee dalka sidoo kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xerada tababarka ciidamada dalka Turkiga waxa uu kula kulmay saraakiil ciidamada Turkiga ah waxa uuna uga mahadceliyay kaalinta mugga leh ay ka qaadanayaan tayeenta iyo dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya taas oo sahlaysa la wareegida amniga guud ee dalka. maalintii labaad oo xiriir ah magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxa uu shir uga socdaa madaxweynayaasha iyo wakiilada qaar ka mid ah wadamada urur goboleedka IGAD kulankii 39aad shirka uu gudoominayo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa maalintii koobaad ee shalay ahayd looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka hareeyay gobolka sida colaadaha iyo abaaraha. Soomaaliya waxa shirkaasi uga qayb galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo matalaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa ugu baaqay madaxda IGAD inay ka wada shaqeeyaan sidii xal waara loogu heli lahaa caqabadaha khatarta ku ah nabadda iyo ammaanka gobolka. ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa Niza ayaa xalay toole waxa ay howlgallo ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir sida Waaberi Hodan iyo Dharkeelney. inta uu socday howlgalka ciidamada booliiska iyo kuwa Niza ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen kooxo burcad ah oo dadka u geysanaya dilka dibna dhaca kuwaas oo waayadan dambaba ku soo badanayay caasimadda dalka ee Muqdisho. si gaar ah howlgalkan baacsigiisa waxa qayb ka ahayd ciyaal weerarada nafta looga fakan laayahay ee dadka ku dhibaateeya magaalada Muqdisho kuwaas oo waqtiganba isku bedelay gaangi sida uu afayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo u sheegay warbaahinta. afayeenka oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in howlgalka lagu soo qabtay dad aan ahayn asgar laguna helay hub sharci darro ah oo ay ku dhibaateen jireen shacbi weynaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kuwaas oo mararka qaar dadka dila kadibna dhaca. afayeenka oo hadalkiisa sii wato ayaa waalidiinta Soomaaliyeed waxa uu uga digay in ay soo dabagalaan ciyaal weerarada lagu soo qabto iyagoo gacmaha kula jira falal liddi ku ah amniga wuxuuna waalidiinta Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka warhayaan caruurtooda mar haddii lagu soo qabto falal liddi ku ah ammaankana aan laga yeeli doonin inay soo dabagalaan amaba ay soo raadiyaan ubadkooda. hagaag daawadayaal intaasi ayaan ku joojinayaa warka saacadda telefishinka Hirshabelle wixii wara oo soo kordho waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe ee telefishinka anigoo mahad ku waara ayaa idin la socodsiinayay nabadgelyo.